عليكم والسلام يا أصحابتي دمانتين muuqaalkan maanta waxaan ku eegi doonaa qaabkaad uga xidhi karto keyboardkaaga dhawaaqiisa dib ma kaa haysatay markaad istiraahdo youtube-ka isticmaal keyboardku inuu dhawaaq sameeyo dhawaaqaas oo kale adigoon mobilka silent gelinayn saad uga xidhi kartaa ayaan muuqaalkan ku eegi doonaa hadday noqoto youtube hadday noqoto whatsapp app kastoo aad isticmaalayso mobilka aad uga xidhi karto markaa dhawaaqa aad uga xidhiso haddaba isla socod wanaagsan qodobka koowaad aan samayn doonaa wuxuu noqon doonaa step 1 settingkaad soo gelaysaa settingka markaad soo gasho waxaad samayn doontaa sounds and vibration ayaad kasii dooran doontaa intaa ka bacdi waxaad dooran doontaa system and sound halkaad u socotay waa kan markaa Samsung keyboard ayaad iska xidhaysaa sidoo kale waxaad xidhi doontaa touch intersection intaa marka qabto ka bacdi waad ka bixi doontaa markaad ka baxdo waxaad samayn doontaa waxaad eegaysaa markaa inuu shaqaynayo wakaa wax dhawaaqa samayn maayo hadda muuqaalkiin intaasuu ahaa isla socod wanaagsan wassalaamu calaykum